bidaya ayada ku noqotay imisa garanaya iyada ku noqotay hooyadu waxa la inoo samaynayaa waa la inoo soo wareegay yaa hooyo waxay igu tiri hooyo maanta u yeelo hooyaa tiri ku laabo ina mari waaye cabdiqaadir hooyo may ogeyn dhibaatadu igu hayay waxaan oo dhibaataa hooyo markay igu tiri hooyo maanta luguhu haystaa maanta bal aniga madaxayga haye baan ku iri hooyo amarkaaga hooyo jira ninkayga soo ma aha waan ku laabanay waan ku laabtay ninkii markaan ku laabtay cabdiqaadir oo dhibaatadii maxadhaysaa mise sidiiba kusii soconay dhibaatadii halkii unbay taagnayd dhibaatadii halkii unbay kusii socotay xoogaa markan iminka furiinkii uu igaga nixiyey baa xoogaa wadna iyar siiyo iminka waxaan yar bilaabay inaan hadalka ku yar celiyo oo habeen markuu 3 habeennimo isoo waco soo baxnaya ma balwadii baad cunaysaa aan ku raado war ma soo baxayo telefoonka intaan ku dhigo iska jiifsado habeen samuurada fariid ka dhiga fariid cabdiqaadir oo habeenka aan saa ku leeyahay aan leeyahay war ma soo bixin ilaahay baa iga reebaye wuxuu soo diyaarsaday silsilad wuxuu soo diyaarsaday xadhko wuxuu soo diyaarsaday qaar intaa dherer la eg waa labadii habeennimo 3 bay ku socotaa cabdiqaadir maalinta dambe isagun baa ii sheegay wuxuu igu yidhi waxaasan soo diyaarsaday waxaan rabay intaan keynta cidlada ah kula tago ayada magaalada intaan kaala baxo oo ayada cidlada ah kula tago oon silsilada ay xadhkaha kuugu xirxiro inaan ku garaaco ilaa aad ka sheegayso waxaad balwad leedahay intanina assalaamu calaykum tiri أعوذ بالله من الشيطان الرجيم waad ii soo bixi weyday xalay saasaan damacsana uuna i kaxaysan lahaayo saa markaan ugu soo baxo gaadhiga soo gal shidhkaa la iga furo waan gala loogana waa la i xidha halkaas haddii la ii dilayo haddii la i xisaabinayo haddii wax kale jiraan haddii afka toosh lagaga waxaaba halkaas lagu sameeya marka uu samayn kari lahaa wayna u fududaan lahayd haddii aan soo bixi lahaa laakiin maadaamaan daacadahay ilaahay baa i waafajiyey inaan ku idhaahdo war kuuma soo baxayo markuu saa igu yidhi waxa igu soo dhacday baaskooladii uu gaadhiga ku wadan jiray mar habeenku arki jiray cabdiqaadir waxaan isiri maxaa khaldan noloshaadaba khatar bay ku jirtaa halis bay ku jirtaa malaa waxaan cabsidan iyo biqitaankan iyo shakigan iyo masayrkan waxa keenaya inta aad banaanka kala joogtaane isguursada oo guri wada cararay rooya waxaan isiri bal la wareego la aqal galo aqal wada gala waxaan isiri waxaan oo buuqlaymo waxaan oo buuqa waxa keenaya waxaan isiri waxa keenaya inta aad kala maqan tihiin hadaad nolosha ku midowdaan oo hal guri aad wada seexataan oo riyaliga dhabta nolosha dhabta uu arko oo hal guri ka soo wada toostaan waxba iska bedelaya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم منك باستولدنا ستكو شاغين كديري كو غورعي guys maxaan sugnaa diyada faadmo la jarjarayde waxay inta ka dambe cabsi bis waa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم marka intanaan isku laaban habeenkii markaa dalqada bishii hal bil bay ahayd markaan kala furnayn cabdiqaadir qolkeenan ay habeenkaa inantu soo fuushay sheekadeeda inta hore malaa ma xasuusataan qolka way kaga sheekaysay deedna waxaa loo diray koonis baa loo diray kooniskiibuu ku arkay markan uu leeyahay xadhkaha kusoo xidhxidh baan islahaa layf baad baratay layf baad gashaa balwad baan khaatiyaan kaaga taagnaa naag baad niman baad raacdaa maxaa layfkani muxuu ah walaa layf laysku caaya maaha layf laysku shukaansada maaha sheekooyinkaa lagu soo gudbiyaa waan iska sheekaysanayna markaa sheekada aad ka sheekeynaysa adigu maxay ahayd sheekada aad ka sheekeynaysay adigu maxay ahayd waan jeclaan lahaa inay inantaasi soo qabsato soo qabso qaale haddaad joogto kulley waad joogtaa maxay ahayd sheekada aad ka sheekeynaysay aniga bad ku jiray deedna markaa waxyaabaha ugu badan ee problemka keenaya ka mid ah waxaan isiri markaa buuqan problemkan adaygan badan waxaan waxa keenaya malaa kala maqnaanshahaad kala maqantihiin iyo kala fogaantaad kala fogtihiin
haddaad guri wada gashaan oo aad isguursataan oo isla aqal gashaan oo dee meherkan aad dhaaftaan oo dad lamaano oo guri wada degan aad noqotaan dhibaatadu way idinka yaraanaysaa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاضل أنت هذول ما عبسي سماها. ها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. cabdiqaadir wuxuu igu yiri sharcigii baa iga dhacaya waan tegayaa sharcigaan soo cusboonaysiisanayaa waan soo laabanaya haye baan ku idhi sharcigii intuu ku maqnaa taleefanku waa ina daan weyne waqti kasta ama hurud ama ha hurdin aday kuu taala. cabdiqaadir oo markay wixii problemkii batay ee maalin kasta taleefon taagan maalin kasta taleefon taagan maalin kasta taleefon taagan maalin kasta cay maalin kasta cabsi maalin kasta wadna kurkur ninku walaal aniga miyuu garanayaa sheekada waan ka hadhay marka tiro kana timid ma ii kuma garanayo oo media iyo waxaas nin ku mashquulaba maaha kaliya ta wuxuu arkay kooniska la soo diray kooniska markaad live fuusho koonis lagu soo diro taleefankaaga hadhow tiktokaagu dhex gelaya kooniskan la soo diray ayuu wuxuu ka gartay inaan live fuulay oo live la igu soo diray aniga ma arkin sabaa may walaal kuma arag iska joog baaskooladii xarig iyo silsiladaana kuu soo qaadanay ala fulaysanaa wadna xagaan uga soo iibiyaa rooya waxaan ku idhi halkaa markay marayso baasaboorkiibu soo cusboonaysiistay uu soo laabtay waxaan ku idhi walaalow iminka 2 sano ayay maraysaa iyo weliba wax dheeraada inaan dee gabadh kuu ahayo marwo kuu ahayo xaaskaagiyo aanad la wareegin aan ahayo gurigaygii joogo gabadh la qabo aan haddana la qabin aan ahay reerkayagu culays ima moodayaan inaan culays ku ahayo inantoodiioo shaqaysato guriga degan baan adna waad shaqaysataa anna waan shaqaystaa nolosha waan wada dhisan kareena haddaad itiraahdo 2 sano isug haddaad itiraahdo 3 sano isug haddaad itiraahdo 4 sano isug waan ku sugayaa laakiin waxaad ii sheegtaa aanad maalinna ii sheegin xillimaad ila wareegaysaa guri inagu aan leenahay aan wada degaynaa walaal ninkii muu ina daawanaya faadima horta ma hadduu ina daawanayo waxaa uu ina daawanaya cabdiqaadir oo kugu taal cabdiqaadir oo iska soo joog wadankii buu joogaa iska soo jeeso walaa cabdiqaadir iska soo jeeso huuna wadankii buu joogaa ma soo gaaraye waxa dhacday markaa wuxuu igu yiri horta halka kelmadaasuu ka xanaaqay guri ila gal oo guri i geyso ayuuba ka xanaaqay seebaad ii odhan kartaa isaga waxay ugu baxaysaaba uu ku haystaaba gaarigaa dhexdiisa xisaab markay noqoto wuu igu xisaabiyaa dil markay noqoto wuu igu dhex dilaa markay xaaladdu kasoo tusto islaantaadii u tago taleefon yar soo dirso gaarigaa dhexdiisa wax kasta uu ku dhamaystaa marka sababuu guri ii geysto iyo sababuu isku hawlo iyo sababuu guri usoo kireeyo sababuu alaab usoo dhigo waxaasoo dhanba uma muuqato isaga 2 sano iyo kalkowsna way maraysaa cabdiqaadir ma joogo ninkii caadi indhaha ka dhigo deedna waxaa dhacday inankii halkaasu markaa dagaal ka bilaabay cusub guri inoo soo kiree markaan idhi subax buu isoo garaacay markaa anoo shaqada jooga wuxuu igu yiri waan ogaa xalay hoteelkaad jiiftay waan ogaa xalay ninkaad la jiiftay waan garanayaa haddaad noolaato haddaad lagu dambaystaba dhigto maanigaad ileedahay baan ku idhi haa waan ogaa xalay hoteelkaad seexatay gaariga lagugu soo qaatay guriga lagaaga soo qaatay hoteelkii lagu kan wax kasta xalay waan la socday waayahay baan ku idhi meel ha waayin hadalkaas maalintaa xoogaa markaa waan kululaaday qofte maalin kasta lagu tilmaamayo inuu macsiyeysto walaalkii baa isoo qaaday walaalkii markuu isoo qaaday ayaan waxaan ku idhi walaalo arrinkaasaa jira ninkii saasuu ileeyahay maalin kasta saasuu ileeyahay wuxuu ileeyahay balwad baad leedahay markaa waa fatahay wuxuu ileeyahay balwad baad leedahay wuxuu ileeyahay niman baad raacdaa wuxuu ileeyahay waa tumataa wuxuu ileeyahay hotel baa lagula tagaa khaatiyaan baan ka taaganahay ninkii tabcaan baan ahay halkii u dambeysay iga maraysaa warqadda iiga soo qaada waxaan ku idhi walaalo waxaad ii sheegtaa aniga waxaan ku idhi 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 aniga waxaan ku idhi
wuxuu yiri walaalkay ma hubtaa misagaasaa kugu yiri haa anaa ninkaa u tegaya annagaana is arkayna laakiin ma iga hubtaa adiga inaanay hadhow xaggaaga waxba ka imanayn waxba ka iman maayaan baa kuri anigu balwad inaanan lahayna walaal waan is ogahay wax kalena dee gabadh sababaan nin kale u raacana maba jirto dee ninkaygii baa halkan joogo gabadh la qabaan ahay maalin kasta waxaasuu yidhaahda waaye buu yiri oo isagii buu la hadla aynu halkaas isugu nimaadno Faadimo ninkuu dhintay uni dhacaaw ma noola soo yaro iska joog deetana halkii baanu ninkii bay kulmeen walaalkay wuxuu ku yiri gabadheedi way kaa cabanaysaa saasaad ku tiri maxaad ka wada gabadheeda haddaad ka shakisan tahay anagu balwadna shaqo kuma lihin gabadh binti suuqana shaqo kuma lihin haddaad gabadheeda ka shakisan tahay dee meherba kuma hayo warqadeeda halkaa dhig gabadheedan sida loo bahdilaya cabdilqaadir oo xaafadayda dadka ugu kulkulul baan ku jiraayo gabadh kulul oo dab leh ayay xaafadaydu i yaqaanaan sanad dab ku leedayba haa kaladow dabki isku dabbaynaan sheegayna ku soco deedna wuxuu yiri saaxib maaha seedi maaha laguhu qabsaday anigu waan jeclahay laanteed ma noolaan karo waa noloshaydii waa xaaskaygii waa raaliyo waxaas waa beenteed anigu waxaa maba odhanba mana odhan karayaba naftii ilaahay bay ii keentay way igu kulushahay way igu canaan badan tahay way igu buuq badan tahay iyadaa i dhibta iyadaa i kadeeda iyadaaba raba inaa idinka soo dacwoodo laakiin anigu noloshaydaba kelmad xun oo khaldan mabaan odhan adkaatay walaalkay baa soo noqda wuxuu yiri waan ogahay inaad ninka ku kulushahay kulaylkana waan kugu ogeyn ninkaaga iska dhaqo ninkaaga waa miskiin wax kasta uu ii soo sheegay reerkaaga dhaqo kulayl beel misanaba kulaylaba kulayl kastan ku ogeyn waa laga bedelay wax ku soco cabdiqaadir waxaan idhi calaacashaa may tima ka soo baxdaa may waa calaacashaasi tima ka soo baxday ninkii ma doonayo mana rabo mana arki karo hadduu ma akhriyo 114 qur-aanka hadduu akhriyo xitaa oo halkaas soo istaago ma doonayo ku noqo walaal aabaa yimi may hooyaa timi may hooyadiisa ayla soo hadasha hooyo gurigiina dhaqda hooyo noloshiina wata guri ma dhisna baan ku idhaahdaa meeshan guri dhisan oo hagaagaya ma jire dacaskay maqashi wiilkaaga hayso cabdilqaadir oo isagiina wuxuu leeyahay guri baan kareysanayaa qofku arko wuxuu leeyahay tamaandhaan rabaa tamaandho kale adduunka maan arag iila soo hadla wadada qofku ku arko wuxuu leeyahay iila soo hadal iisoo maslaxa gurigii baan kareysanayaa waan kareystay alaabtii baan dhiganayaa waan la aqalgelayaa arooskii qarnigaan u dhigayaa anaa garan waayay qiimaheeda iila soo hadla ayuu qof kasta ku leeyahay waa la imaadaa ninkii uu waashay mana waalan mana miyir qabee ninkan dee jacayl buu la waalanayaa ninkaaga saasuu leeyahay aniga laakiin qalbigaygii iyo laabtaydii uu ka tirtirmay qofkii ii yimaada waxaan dhahaa iminka ha waasho gudaafadaha xitaa ha fadhiisto warqadaydii halayga soo qaado muddo 3 bilooda warqadiibaa ka daba laadlaada hawshaasina hadda way taagan tahay 3 bilood ismaanaan salaamin taleefanadii oo dhan baa ka baloogareeyey shaqadaydii baan xorriyad u tegey qof xorriyad haysataan noqday qof jeel ka soo baxday baan noqday isagu laakiin meel kasta hadda wuxuu la taagan yahay gabadhii halaysoo maslaxo gabadhii waan la aqalgelayaa gabadhii waan rabaa gabadhaasina halkaas ayay ninkaa ka taagan tahay ku noqo walaal maqlin ha ku noqon sheekada labaad baan ku xijinaya oo aad u adag